السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maamadan waa aragteen ninka qadaanka inta ka qabta tuuray ma ku laabanayno Soomaali laakiin dad isjecel waay maamadii waxa u kacay Soomaali waxa aad uga soo dhaxbaxay Soomaalidaas maamulka ama muasasada Samakaal oo ah isbitaal Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho xaruntiisa ugu weyn ku taal waxaa loo balan qaaday inaysan mar dambe xamaal noqon doodka ma ka dhidi doonto hooyadan Soomaaliyeed hadday ku danqanaysay hooyadan oo xamaal ah naso saaxiib ajarkaaga waa shaqaysatay fariinta waa gudbisay mar labaadna fariintan gudbi sabab waxay u noqon kartaa in inta hadda loo qabtay ka badan loo qabto hooyada ilmaheedii iyadii waxaa booqday mas'uuliyiin matalayay ummadda guud ahaan sidoo kale tana ku hadlayay afka Samakaal waxaana si qoto dheer meesha markii loo tagay loo arkay xaaladda ay ku sugan tahay oo quus ahayd hooyada warka yaa idinku daahinin aan idin sii deeyay muuqaalkeeda waxay ka mahad celisay sida loo caawiyay dukaan ayaa kaliya loo dhisaa oo ay ku shaqaysaneen ilmaheedana ka korsaneen mar dambana nin inta ka qabto ma dhihi doono orod shaqada gal asagoo si kala tuuray afgambo ayay u dhiclatay daay hooyadan sidoo kale waxa muuqaalka ku daawan doontaan mas'uuliyiinta Samakaal naftigooda oo hadlay dictorka oo si toos uga warbixinaya sida ay muhiimad u leedahay in la isku asxaan falo dadkana waxa la faa'iido lagu celiyo isbitaalkan waxa arkay dhowr jeer isagoo dad u gurmanay waa ku amaanina muuqaalka aan markaan isla daawano bal siday uga mahad celisay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه gudi oo samafale oo fi sabilillah in shaqeeyaan yaana runtii aadam abaarey lankun qaasin leerow i samafale i wariyaalkii geedo may la raay ha aragi maamadan baamay idin aliyow oo runtii dhagax ka shaqeeya si shalay aragaasan may la raay lan dadan qadiyay yeelahin gurmadi wala fadana inta wakaay indhis alla lanki ku qayb qaado kor hadda wala ku qayb qaado kaalinta weyn may la raay giliyoye Samakaal hospital ya ballan qaadeen intii maylun dukaan leenka dhis yeelisan aragaasan waaye ya dukaan leenka dhisay lan alla lanki garab sii kor idii waato ya isku le runtii ciyaal badan idii roogan markuu wala fadana maamadan liin gurmad sidii baniis gurmad jarnay in liin gurmudo fadaan wala waaye ilaahay wala ray dadkii naxariisada anina seen naxariisada markan wala la faday ahsaankaas lagu qayb qaadada runtii gurufaylan oo dukaanka inta liinka dhisa lan walba walaay helo kora Samakaal may la ray hospital wala ballan qaaday may la ray in dabakaay in dhista oo dukaan oo raashin liinshana yaka ganacsata sidii in ku rooj macnaha mardam in saada fadna intii shiid qaad waayeel waaye kulli xoojiye maaladaasi shalayna may la ray xoogo wala la ku suubiyo cunsuriyad oo runtii dadka dhan in qaadadeen in faylahay markan wariyaalkii dadaalka suubi inuu inta qoyni wala fadana maamadan lin kalmay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh adana wala hadalay may la ray asxaabtay kale oo yoona samafal inteega markaan dictorka hana la hadla bal dictor Amin Samakaal soo dhawow bal bahda Samakaal Hospital iyo muasasada Samakaal Hospital Foundation waxa ay ka xun tahay hooyada Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Faadumo ee ku sugan magaalada Baydhabo oo runtii baraha bulshada aanu ka daawanay dhibaatooyinka ay ku sugan tahay iyo ayadoo fal runtii aanan farxad gelinaynin qof kasta oo damiir lagu dhaqmayo hooyada Soomaaliyeed oo wareysiga ay bixisay wariyaha ay siineysay ka codsatay ayadoo isla markaana uusan xataa ahayn shaqadii wariyahaas aan ku maqlnay shaqo wararka caadiga ee la soo tabiyo ah wariye sportis laakiin ayada ay ka codsatay inuu ka duubo kilibkaasi ummadda Soomaaliyeed ee walaal ka dhibaatada haysato haddana isla goobtii shaqo ee dibkaas ku soo gaaray horta waa ka xunnahay waxaana runtii rajeynaynaa insha Allah taala inay u noqoto mid wax badan u furfurto nolosheeda isla markaana dhibaatada ay uga baxdo codsigeedii waxa ka mid ah inay jeclaaleed inay shaqaysato maadaama guri ayada ay leedahay ama markaas aan kiro ku ahayn degan tahay waxyaabaha ay ku shaqaysan kartaan ay ka mid tahay inay dukaan ka samaysato gurigeeda annaga oo arintaasi ka dabaaqayno ama arintaas ka duuleyno waxaan go'aansanay inaan ka caawino in dukaankaasi ay samaysato hooyadu si ay ugu shaqaysato waana inta tabarteena ee daaran oo dhisleen haddii aan awoodno markastana isbitaalka Samakaal ama bahda Samakaal Hospital Foundation waxay ku fikirtaa ama ay jeceshahay in dadka midka baahan ay garab istaagto midka jiran ay daaweyso
waxaana juhdi ku bixinaa in waxa bulshada naga soo galo ama markaan u shaqeyno aan dib ugu celino wixii aan ka faa'iidnay ayaka si bulsho badan ay noola qaybsadaan waxa ummadda aan ka faa'iidnay ama aan ugu shaqeynay maadaama aan nahay institution barayfada waana ku faraxsanahay inaan ummaddeena garab u ahaano. Asalaamu calaykum.